runtii dee abaarta waa laga hadlay xildhibaanadii iga horreeyey si fiican bay uga hadleen nuxurkii dee warka u dhammaaday dhammaadkiisii markaa anigu yar baan ku darayaa runtii abaartu dee waa wax maaragtay adduunka keygan Soomaalidu digtoo dhan way ka jirtaa hadda sidaad og tihiin inagu markaa waaba ladanahay marka la eego meelaha qaar oo xoolaha iyo dee yacni ma taqaana ma dhiman wali laakiin waxa mushkiladu ka taagan tahay iyadoo oo xilli roobaadkii horena arrada seejiyay kii dambana waqti badan ka hadhay sidii aynu filaynay ilaahay markuu doono ayuu shubi karaa markasta waxay u baahan tahay in arrinta laga diyaar garoobo oo dee maaragtay waqti dheer baa maaragtay xooluhuna dee roob horena ma helin dhulkuna uu kala daran yahay oo runtii dee abaartu way baahsan tahay laakiin way kala maaragtay saameynteedu waa ku kala gedisan tahay deegaamada oo sida ay u kala daran yihiin baa dee loo qiimeyn doonaa marka ay maaragtay arrintaasi la guda galo laakiin shacabka iyo dawladda iyo cid kasta waxa looga baahan yahay in loo diyaar garoobo sidii looga hortagi lahaa abaarta baahsan ee ka jirta arlada magaranaysaa bilowga hadda weey waqtigan iyadoo xil roobnaan u dhaweyn baa biyo dhaamis jira biyahana u daran meelaha qaar hawdka xaaluf kula waa jira laakiin biyaha ayaa aad ugu daran dhulka hawdka marka maadaama waqti dheer uu roobka xil roobaad ka harsan yahay waa in sidii looga hortagi lahaa ee dadka loo gurman lahaa aynu isku tashanno oo loo diyaar garoobo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.